لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وقتكنا هو وقت الدم ودي طبقي هبيني ما يمرسها warka badan aan halkan ka sheegaynaa mana mala yahuud wax badan yeeli maayo kelmadda la igu qoray waxay ku saabsan tahay asbaab dacfi almuslimiin waxyaabaha keenay muslimka tamar darradiisa maanta markaynu eegno muslim oo dhan haddaynu eegno iyo haddaynu carab oo qura eegno carabi waa 300 milyan yuhuudda dunida ku noolina waa 15 milyan waxa Israa'iil joogaya waxa ka maqan marka la isku daro macnaheedu waxa weeyaan boqolkii carabeed ba 5 yuhuudeed ba ku beegmaya waa 5% bay ka yihiin haddii muslim weyne loo eegana muslimku tirooyinka ugu yar ay sheegaan haddaynu qaadano oo idhaahno waa bilyan iyo badh waa 1% bay yuhuudi markaa ka tahay boqolkii muslimaba halba ku beegmaya reer banu Israa'iila idan 15 milyan bay ka cabanayaan 2 bilyan oo bini aadam waa waxa aad u cajiiba 2 bilyan oo bini aadam ayaa 15 milyan ka cabanaya waa qadiyad runtii aad u weyn inkastoo cali diiriye meel la odhan jiray ninkii Soomaaliyeed abwaanka ahaa toddobaatanaadkii dagaaladii markay dhaceen wuxuu lahaa Israa'iil ma boodeen bari dhexe intuu dego birta kuma afaysteen waa boqol yahuudi rag baa biirinayo baarka u fidhaaye barqa laguma gaadhin buu lahaa markaa wuxuu tilmaamay inay 15 kana ahayd dad badan oo ka dambeeya inay jiraan si kastaba ha noqoto taariikhda islaamiga markaanu dib ugu noqono maaha markii koowaad ee muslimiintu ay dacfi dareemaan haddaynu eegno cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waqti laga xoog badnaa baa jiray haddana waqti yaroo kooban bay labadii dowladood ee dunida ugu xooga badnaa dhowr iyo 10 dagaal bay la galeen baan filayaa ay kaga takhalluseen taariikhii ka dambeeyay haddaynu eegnana muslimiintu waqtiyo badan oo dacfi ay dareemeen baa jira waxaa ka mid ah waqtigii Mongolian isku qabsadeen caalamul islaami intiisa ugu badan waxaa ka mid ah waqtigii ayaama Andalus markii laga soo saaray Spain iyo Portuguese iyo dhulkaasi ilaa Faransiiska dacalkiisa ama Paris dacalkeeda aan idhaahdo macrakatul bilaad iyo muslimiintu dhulkii ay qabsadeen dib looga soo wada saaray waxaa ka mid ah بيت المقدس كلفتيسا وقتها يقبصدين أما الشام قيبة بدنو كم دا يقبصدين ودقين كروسيرسكي أما كريستانكي يوروب كسو دولي ما تجي وحاصل دار مركان نسكو صوت دارو تاريخ دا أوجو كما أها إنما بيت المقدس القبصة ما دول المسلمين القبصة مو مسلم للجبيو لكن سؤال شيء سويدين تالي وحويان مركز ته ولا قبسنا يي محيكو سقنايه markastoo muslimiintu ay jabeen xaalkoodu sidoo ahaa markastoo ay guuleysanayeen maxay ku guuleysanayeen qadiyada u baahan in dib taariikhda looga baaro ama dib loo eego waa kaas inta badan marka taariikhda laga warramayo waxna waxay ku tilmaamaan inay yihiin asbaab daakhiliya bulshada dhexdeeda wax ka jiro oo jabku ka yimi waxna waxay ku tilmaamaan asbaab khaarijiya dabadda wax kaaga yimi laakiin waxay yiraahdaan inta ugu badan leh asbaabta khaarijiga ee la sheegaa waa nataa'ij ma aha sababta xaqiiqiga ah waana sida ay inta badan sharxayso suuratu ali imran qisatu uhud marka ilaahay uu ka warramayo laguma cilaynin khalid ba xariif ahaa ama dagaalyahan ahaa ama godololadiina helay ama wala idinka tira waxaasoo dhan laguma cilaynin iyadoo ay jirto laakiin waxaa la tilmaamay waxani waa nataa'ij أصلكو إنه أها ضعفي مسلم ككل عجودهيس ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين آيات تربضا
ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sharxaya asbaabtii daakhiliga ahayd ee muslimka ku dhacday awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum anna haada qul huwa min cindi anfusikum ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wuxuu tilmaamayaa sababaha xaqiiqiga ee jabka keena inay yihiin sababo daakhiliya walidalik qaacida caama baa qur-aanka ku taalloo tilmaamaysa in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim duulla waxay ku sugan yihiin hadday badhaadho ku jiraan iyo hadday dhibahaysataba lagama bedelo inay iyagu bedelaan mooyaane cama fi lanfus waxa naftooda ku jira inay wax ka bedelaan mooyaane waxaan odhan karnaa markaa sababtoo dhan waa la ijmaalin karaa hal midoo qura lagu tilmaami karaa halkaa mida waa la tafsiilin karaa waa la balballaadhin karaa oo waxyaabaha ay sheegayso midkaa guud waa la tafsiilin karaa waa la sheegi karaa sababtu waa hal mida marka hore waa ama diin ka tegis diintoo la ihmaaliyo diintoo jaahil laga noqdo diintoo aan lagaga dhaqmin في الأمور الشخصية أما في الأمور الاجتماعية والسياسية مدة دونتان نقطة ويا إلهي بالقرآن كوحي نوغشة جاي بلن وقاضي هدي دين تسيدا يتحي لو رقمه ما هسيدا دادو فهم سنت وسيدا يضطي دينهم الذي ارتضى سيدا الله ورالي وجاي هدي لو رقمه إلهي بلن قاضي نقول له ليه إلهي القرآن كوحي نوغشة جاي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وبلنا له إلهنا وحلي وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلهي وحب الله قاضي وضدك مسلمين تاو يبوهي هدي لغا هلو إيمان كي لو باهنا لغا هلا عمل ونكسن عمل كي أمدي سيئ صالح هاي لو باهنا إن دول كان إلهي سبحانه وتعالى يغا خليف وغدق أيوه سيدي دادك يغا كوهر رييبا خليف غلوغا غدق إيين إلهي دين تو دا مكانسين أيوه دينهم الذي ارتضى لهم دينتي الله رالي ونقضي ما هالدينتن أنه نو فسر كذا وقاضناي مسبحية سجايدنا يتهاي وهذا وردك بتصطو مساجد كاد قشين تقول إيش نسمع وردك هي مسبحة هي صلاة هي كوكاني ووحلو بهاي هي لكن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سيدا وجد إيمانكو كيلو باهنا هدو نقضه ومدى مسلمين تا إيمانك هي ستا كيلو فراي هدو نقضه وإلهي وحلي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين قرب إلهي تلمامي أفكنك لا إلهي الرسول بانو الرمينو وحبانو أطيعنا لكن كتشيسن يدين تو شهدين إياه warkuwaasi mu'min ma haba ilaahay ku tilmaama idan hadduu iimaanku kii dhabtaa uu yahay waxa ka dhasha camal saalixa oo isna camalkii dhabta ee shareecadu ay sheegaysaya marka waxaynu odhan karnaa mushkiladeennoo dhamme haddaynu duuduubno tafaasiishu ha dambayso haddaynu duuduubno waa hal mid ah waa diin la'aan waa dacfi diinteenna ku jira وكل الآن دينتين نكون رقم ويني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود يا إمام أحمد بورين أيام بمجموع طرق علماء الأيام صحيح إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وحنا بقول عليه الصلاة والسلام هذا عينة كل قنتان عينة هو نوع من الربا وأن ربا الله حيل هذا يستي أنك ترى هذا قاري جيبي أو $1 يقصي دبتنا يجي يسو أو سداد بقول يسي
markaa meeshu wax weeyaan un 800 waad qaadatay kunna waa lagaa rabaa 800 oo 200 oo ribi saarantay un weeyaan haddaa ciinada ku dhaqantaan buu nebigu tilmaamaya oo lo'da dabada qabsataan oo beeraha ku dhegtaan oo ilaahay jihaadkiisa ka tagtaan ilaahay wuxuu idinku sallid ka kacaynin ilaa iyo goorma xataa tarjicu ilaa diinikum ilaahay aad diintiina u soo noqotaan baa uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan waxaan leenahay aslu ducf aw idacf muslimiinta haya marka si duuduuba loo sheego waa diin xumo marka si duuduuba loo sheego waa diin xumo diin xumadaasi oo tilmaamaysa inaan kitaabka rabbi iyo sunnadii nebigu calayhi salaatu wasalaam siday sheegayeen loogu dhaqmin bidaliil kuwii ku dhaqmay ballankan way heleen yaboohaynu nidhi ilaahay baa yaboohay kuwii ku dhaqmay marnaba may waayin fi taariikh ama cahadu saxaaba ha noqoto ama cuhuudii ka dambaysa ha noqotee kuwii ku dhaqmi waayeyna waa dulloobeen haddaynu isnidhaahno wakhtigu waa kooban yahee 2-3 qodob tilmaamo bitafsiila kow waxaynu leenahay waxyaabaha caalamulislaami ama umma alislaamiya haysta waxaa ka mid ah cadamu alqiyaada alraashida aw ghiyaab alimaam alcaalim alcaadil waxaa maqan hoggaankii qumanaa caalamulislaami waa dad taliska hayaa inta badan waa dad ama ducafo ah ama diinlaawayaal ah ama aan mabda'aba rumaysanayn ama fahamkoodu uu gaaban yahay oo liito ama aragtiday diinta ka qabanaanay aragti qurux le ahayn saa daraaddeed bay waxay ku dhaqmayaan uun inay dadka caburiyaan iyo inay nafta isugu keenaan iyo inay wax dulmiyaan iyo inay xorriyadda ka qaadaan iyo inay karaamo dilaan iyo inay baabi'iyaan alqiyam alinsaaniya waxay ku tilmaamaan qofka bini aadamka bini aadamnimadiisa ama inay dadka addoonsadaan kuwa ugu ladan ee la ammaana waa kuwa u ogolaado dadku waxay cunaan inay helaan markuu cunnada ogolaado ayaa la ammaanaa la yidhaahdaa ninkaas waa nin fiican oo waddankiisa beriskaa dadku cunaa idan markaynu isku darro nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu tilmaamayay xadiidka uu ku tilmaamayo isbeddelka siyaasiga ee ku dhici doona qiyaadada muslimiinta waxa uu ku tilmaamay takuunu nubuwa fiikum maa shaa allahu an takuun nebinima dhexdiinna joogayso qiyaadada ambiya idiin haynaysa waa nebiga calayhi salaatu wasalaam intii alla ka doono dabeetana ilaahay baa rafcin doona waxaa ku xigi doona buu nebigu leeyahy uma takuunu khilaafa calaa minhaaji nubuwa maamul waddadii nebiga haya ayaa ku xigi doona dabeetana intii alla doonaabay ahaan doontaa kadibna ilaahay baa rafcin doona waxaa ku xigi doona buu nebigu tilmaamayaa boqortooyo caada iyo boqortooyo jabariya kuwa dadka qaniinayo laynayo tumayo cadaadinayo dictatorisa baa ku xigi doona buu nebigu tilmaamaya kuwaana ilaahay baa rafcin doona intii alla doonay joogi doona way rafcismi doonaan waxaa ku xigi doona buu nebigu yidhi oo soo noqon doona khilaafa calaa minhaaji nubuwa mar dambe oo dadku uu soo noqdo khilaafo dariiqii nebiga haysata uma sakat halkaa markuu marayay nebigu uu aamusay culamaa'i taarikh waxay yidhaahdaan taariikhda muslimiinta qayb ka mida buu nebigu tilmaamay qaybna wuu ka aamusay qaybta uu ka aamusay ilaahay baa og dowraadka dambe siday u socon doonaan dowladda tani laakiin saa afartaa bay isugu xigaysaa afartani miyayna soo wada dhaafeen mise badh baa hadhsan raawiga maalan xadiidka warinaya xabiib xadiidka waxaa kale warinaya 2 saxaabi saxaabi iyadoo meel la fadhiyo oo uu fadhiyo xudayfata bnulyamaan oo uu fadhiyo bashiir ibnu saciid nucmaan ibnu bashiir abihi oo nucmaan ibnu bashiir joogo ayaa abi thaclab alkhushani weydiinayaayoo wuxuu odhanayaa war bashiirow horta xadiidkii nebiga ma haysaa ee khilaafada ka warramayay ama umarada ka warramayay dabeetana muu jeclaan jirin baa la yidhahdaa inuu axaadiis badan sheego bashiir nucmaan ibnu bashiir aabihii xudayfa ibnulyamaan oo fadhiyaa yidhi anaaga og anaa sheegaya dabeetana xadiidkan aynu akhriyayna buu sheegay xabiib oo aan ninka nucmaan ibnu bashiir xadiidka ka warinaya isagu wuxuu ku fasiray
خلافة الراشدة مركي دماتي عهد الأموي إنه عضوض كان يجبري كان يبشري خلافة على منهاج النبوة أين يتهي عهد عمر بن عبد العزيز وحي كدم بينا سكت كاين يكوتشران ثم سكت وسوء فسري راوي حديث كاسي علماء كلا فسر كلا صارتان واجرا مهما تكن يعني الدورات كم دون دورات كالتاريخ مامل كمسلمين تمرد دون أبو نبي الشهري دورات كاسي وحا كم موضة إنه تشابه يسوع مسلمين تاي هوسو سيدا عيسو وحا كلو كم موضة إنه يديمو صون قنيسو مركا أي منهاج النبوة الراعدة إنه يقول يسنسو قيادته أي كان نقطه مركا أي كوعاته ملوكتا عضوض كي يجبري أي شوكتنا ديكتاتور شبكا يقوى أي شوكتنا وقت قال الله ميا إنه يتهيب حديث تلماميا هذا إنه سكة لو تلمامنه لبدا قضبا إنه شيخنا الدين تقودهان هي قيادة الراشد كا حديث سكوت الماميا باشره النبي عليه الصلاة والسلام أولي هي يا معشر المهاجرين 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن مهاجرين يبو نبي المامي 5 شيء أو هدي أي دعان إلهي بان كم بجنجل يا إن أنا دوكو كوال غوي تحما أيضا نقنني وحكرت ما يتلمامي يا نبي فاحشة يزنا يحموه هذا فافان وأي معلن نقضان ده كوا قرية الله كريستيو عالم لقت أجايو عالم الإسلام قريبا بدنه كم ده ده اللي سبب الدولة دوشرتا يو داري لين يا قرية ميو ماله هرجيسنا ده إنت على الرجل فكين ستريت كوا كرمسان ما هذا مال كلا دركسة كتيجي دونتا على كل حال هذا يزنا دو فافته وهذا أي معلن نقطه وحنا يصاب حظه وحو النبي عليه الصلاة والسلام دول كوحلقوا يتحامى حنونا يبكانا ومضي هرهين شري ومضي ميزان كيام مكيالك باع مشترك خيامة يسمى بلوضه إلا إياه أبار بالغو قبطاه إياه سلطان جائرة مدحت قدبته تجارة أما ميزان كولا قلتها النقطة أما شيء وحى وكسم يسيا هي الله سوق قلتها النقطة ما أنت نوى وقتي أما الدواء النقطة أما الراشين هالنقطة إلى حد بال لجارسيا دتك برد أي دادان هذا كنتال كان كنتم كيلا كقرنتين ميزان تنوري أفرتن بابو صباحيا سكستبه هالنقطة هذا الخيام هذا سبادتنا وحلت المامية إن أباروه بدن دونان مدح ظالمين ندتك لقوا يتحامي دونا هذا الزكاة لما نعيه روب كايران دونا بو نبي وتلمامية روبنا ما بس ودين هدي أم بهايم تيدتك وحابة هنياني شرين ضد ما بوريان بو نبي يقول يا عهدي قال يا عهدي رسولك إلا هي وحي لهي كو اتحامى عدو قاطع وحيك عن تودكو شرين هدي ضدكو إلهي بلن كيسي يبلن كي رسولك بوريا كتاب يسونا هذا يدين عمران إلهي وحكو يتحامى صلى الله عليهم عدو با إلهي كو يتحامى وحي قعنتو دا كجري وحكم إذا كقاضة أئمة دودو مدح دودو إلهي كتاب كيسكم حكمان وهو يتخير فيما أنزل الله خير كمرات سدان تخير كوا طلب الخير خير كمرات ديان وحي ألا سودجي إلا جعل الله بأسهم بينهم إلا يجا الله اسكو يتحامى يجا استله حديث كان ابن ماجه ورينا يا لفظ كان اخريه وانا صحيح لغير بيع علماء لي اذا حديث كان لما شيء بوت الماميا جوانب دين تكمده وحي هدي لغا تغو waxa soo baxaya iyo qiyaadada dhaalimka ah markay timaado waxa soo baxaya dhamaantood waxay tilmaamayaan marka asalka dacfiga muslimiintu inay masaa'ilkan ku jirto masalada saddexaad aan tilmaamaya maadaama rabayna soo koobo wax weeyaan ومسألة التفرق والاختلاف والتفكك وعدم جمع الكلمة ومسألة أمضوا إني بربرته أو كلا تكته أو إسخلافته أو إسدشو أو كلا ديراته سبب بدن بانا كينا مرة قاركود مشكلة سياسية في أي مثل حدا وضايو أركتو إني سيداتا كينا مرة قاركود فهم كوبانو الدينات با كينا وما أنت واحد أركيس العالم الإسلامي دول وداد الشيخنا يقول لك على حيو سببتنا وحويا ميد ولبا وحسوها يستدين تينو يسوي وكيل كي فسر كيسونين يهي
kii rabbi loo sugo xagga rabbi ka yimi inta kalena inay baatil ku sugan tahay iyana waa sabab ka mid ah asbaabta ikhtilaaf keentay marka siyaasiyiintu waa mukhtalifiin wadaadda badani waa mukhtalifiin caamadu waa mukhtalifiin qabaa'ilku waa mukhtalifiin dowladuhu waa mukhtalifiin wax wada socdaaba waa yaryihiin wax wada socdaaba waa yaryihiin waxaad moodaaba in sifadii yuhuudda lagu sifeynaya iyaga dhab ku tahay ilaahay yuhuudda markuu sifeynaya muxuu yidhi ba'suhum baynahum shadiid taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shata iyaga colaadood iyo dhibta dhex taalla waa adag tahay waxaad moodaysaa dad wada jira baa ilaahay yidhi laakiin qalbiyadooda way sii kala jeedaan falastiinta imika la hadal hayo dee muslim baa ooda u rogay oo yidhi tuma annana waa idiin ilaalinaynaye 15 sannadood ba hadda la leeyahay wax barisma geli wax la cunaa laga ilaalinaya daa hub iyo waxa ka kaalay bini aadam la yidhi annaga idiin oodayna idinkuna garaaca de kuwan oodaya waa muslimiin waa dad iyo dalal islaamiya inay gargaar bas siiyaan ka kaalay in la yidhaahdo war haddaa wax iska celisaan iska celiya haddii kalena ha laydinku maado war baabay noqon lahayd ee inaad tidhaahdo anna waa kuu qabanaya adna tun anaa kuu xejinaya iyo dhaqdhaqaaqina adiguna tun dacfigu halkaasu ka maraya muxuu ugu qabanayaa ma jacayl buu yuhuudda u qaba may u baqayaa adigaa buu ku soo gaadhiya kan ku hayka una tuma buu taagay yani inta badani waa baqe waxaan leenahay marka furqadu asalku wuxuu ahaa muslimku ترى المؤمنين أما مثل المؤمنين رواية بخارية مسلم waxaad arkaysaa muuminiinta ama tusaalahoodu wuxuu yahay marka la eego naxariistooda iyo isjacaylkooda iyo iscaawintooda iyo isu dabacooda sidii jidh qura oo haddii cudwi xubin ka mida jidhku ay xanuunsato jidhka inta kale uu soo jeed iyo xanuun ugu soo jeedo muslimku miyuu sidaa weegiyay maanta maya mid waliba liwaxdo buu fakaraya keligii bal guriga kugu xiga in lagu dhimanayo in lagu nooliyay ma ogid guriga kugu xiga in gaajo loogu baktinayo in lagu nool yahay inaad ogeyn bay u badan tahay ilaahina quraanka wuxuu ku tilmaamay واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ور الله يا الرسول كيسا داع وارهم مرمنها اسقبننا ييدا ضعيف بالدا الفشل في اللغه هو الضعف وضعيف يسان وليدن يسان با الهي لي وتذهب ريحكم مقعين يد ولدنمدين يددنمدين يا شرفتين واتغيسا واصبروا ان الله مع الصابرين والصورتقل وحوغا حقشيه دبين اي دخدينا كجري كرتو لكن waxa la yiri xal u raadiyo wasbiru in allaha ma'a sabirin kala guuro kala yaaclayna ma oranine wa wasbiru in allaha ma'a sabirin inaynu xal raadino oo sabirna bay ahay nabiguna alayhi salatu wasalaam xadiiska bukhari wuxuu leeyahay la takhtalifu fa in man kana qablakum ikhtalafu fahalaku warho ya iskhilaafina warku idinka horeeyay way iskhilaafeen dabeetana way halaagsameen baa nabigu tilmaamaya waxay leenahay markaa sababtu sabab khaarijiya maaha maraykan baa caawinaya iyo maraykan keligii baa afghanistan waxba yeeli waayay isagoo 45 ciidana wata 45 dawladood oo kristan u watay qaar muslimiin mooyay dhariyaaya waxay meedhayeen waa la socdeen waa ku jireen qaar dawladaha islaamiga kamid ah 150 geeyay 150 askari waxay qabanayaan garan maayo waxaan uga dan leeyahay maca maraykan ha ku jiro maca kuwa ka sii dambeeya ha ku jiro iblisna ha ku jiro maraykan daaye haddii muslimku muslim yahay may dhacdeen waxa hadda dhacaya doo muslimku muslim dhaba yahay waxa dhacaya ma dhaceen walidalik adiibkii masriga ayaa al-aqad loo oran jiray ayaa ihda kutubihi wuxuu leeyahay maqaal word la yiraahdo كثيرا ما يكون الباطل أهلا للهزيمة ولكنه لا يجد من هو أهل للانتصار عليه بيري إن بدن بالله أركابو يري باطلك إنه مدن يهي أموي يهي وح لتشبين كره وحن بولا يهي بولا عدي مدنيدين يقول يسته يعني باطل حق ملها بولا وح اللواي عدي يضم مدنيد إن يقول يسن كرتا ما يشك بحضي قضبك أفراد أن تلمام يا وحويان يو نبغو شاقا عليه الصلاة والسلام
الوهم حب الدنيا وكراهية الموت ضدك النظرة دين يدونك كسو كوبان لكن شيخ هذا كهذا مقاصد جهادكم دين كم الشهادة يتشن الرادين يمال خلق وأنا هين وإنه أنت ندونك حسابتك وإن أنا هين لكن ضدك مركا أركتيدو دو مصلحة شخصية يا دونك محان ديف يا أيو غيري كعرر يحول الرادين أي نقطه وكي حديث النبي قلت المام يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وحيونا وذيب النبي قل عليه الصلاة والسلام إن أمضوه يسقوك يدان سيدا قوة صبت له عسومة وضاله أي يسقو يدان حيرضة إني وداقان سيدا عنا اللو وداقو إن ليدين وداقو والتعبير كنت هذا عجيبة بني آدم النور لنا وصف هي عنا اللي وداقي إني نقضان نبي محمد وحكمت المامية سيدا عنا إن ليدين وداقو حيرضة الله يسقو يدان الله يسقو كي يدان بعد عدونتا صحابة مركا كي يابين وحي يراهدين وما يران با إلهي رسول كيسيو وحي سيدادين وندما انت ضدك كي يراتان أيما الدنيا يدنبابي دونتا وحنا بكوين بل أنتم يومئذ كثير ما لنت هو بدنتي لكن داد حربتهم بالليل حنبضا دادكو مركو كحيو دوشا كسارا تثبتين حنبضو وزن مالي ميسان مالي اتجاهه مصعطه بيو كل بصورك كلا ما من بيو سبيسنا شكل جدوا بيو هاد بسيدو يهاي لان كستو بيا سوق شاقيب بيلا حدا يعني وحقيقة كفر دي ماها نوع سوكلا نقول يسبون النبي بيقول ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يغضفن في قلوبكم الوهن قلبي يدي إننا نمك قالت قلبي جودنا إن إذا كعب صدام والله قصار الدورة ده مسلم قام عدوا إذا كعب ستايم قشرته وحلقوا كده نبي يلعب يوكلا إن أظلم تاهي أديك قلبي جانا وهني بالغ طوري وحين أذن إليه الرسول كيسي وهني يقول وامحي أفعربي ويا قال لك وحي قال لا يم وحن أمضدم فريسين يا وحياي إلهي الرسول كيسي وهني وامحي بين هذا نبي حقول حب الدنيا وكراهية الموت وأدون جعيل يجري كعرب نجري كعرري قول هلالي ما يده قول waxaa ka sokaysa dee mashaakil iyo dhib iyo haddaad cabsidu ku gasho waxba ma jiraan maadaama qodobo badan baynu fasiri karnaa laakiin waxaan rabaa inaan iskaga soo koobo muslimku maanta intiisa badani waa aasantay qaar baa isku dayaya inay madaxa la soo baxaan oo bidaartu muuqataa laakiin iyana weli kumaatiisu may taagin waxaan leenahay tiro ما ترى يرى ما دول يرى بل دول استراتيجية واحد هذا بدها الدنيا ده عندك خنتراشة أي الدنيا ده كتالسة مليح بيشيء عن كنال سيشان كنال بالدنيا ده كويلا مد مويانا أنت كالعالم الإسلامي بقى عندي سكوتشرا هرمز يسويسي يو كوان وهستو تركي جاي مركل سكوت درو بنا ما أقولان قعنتو ده كوتشري واحد الدنيا ده كنال سكوتشرا shidaalka dunidu intay joogaan buu yaallaa tirada dhalinyarada dunida ugu badan intay joogaan bay joogtaa dad wada waa kana way hor fadhidaan waxay raleeyay kuma jiro Soomaa waa dunida muslimka oo dhan waa dhalinyarada laakiin waxaanaynu sheegaynaa maqan qiyaadadii raashidka ahayd dadkan hogaamin lahayd mabda'i xaqiiqiga ahaa ee khayaaliga ahayd ummadani qaadan lahayd midnimadii dhabta ahayd ummadda muslimiintii si uun iyo qaab uun ay u midoobi kari lahaayeen aakhiro iyo janno raadintii dhabta ahayd ay ka bixi lahaayeen minidan sokeeya waxaan aan jirin la raadinayo waxaynu odhan karnaa uun maadaama waqtigu waqti dambe yahay hadalkan aan rabo inaan soo koobo tafsiilka waa tiro badin karnaa laakiin waxaasoo tafsiilay waxaan ku koobayaa man yurid illaahu bihi khayran يفقهه في الدين هذين الدين تقرنه وإنه قرنا سينو حسق علنه يسينو حمام الله يسينو علم وبرنه يسينو ضيع حتى ما لها كفوق آدنه وقرنا لكن وحكاه الرئيسة إنه ضد نقولنا مسلمة هذه تالو قوليستو وقوليساننا
waxaan cilmaaniyiintu inoo sheegtay kambaa dhiman iyo kambaa dhiman war waxaan oo dhami diintay ku jiraan taarikhyahanada qaar baa waxay idhaahdaan Persia iyo Romaniski waxay idhaahdaan xawaalay 1000 sannadood in ku dhadhoobay isdilayeen qaar baa waxay sheegaan ilaa 700 oo dagaal inay galeen may isriixin waxay idhahdaan muslimiintu qolana 15 bay la galeen qolana 9 bay la galeen 24 dagaal bay taariikhda dunida kaga saareen ragga ka saaraya waa raggii hawdka ka yimi ee aan dawlad hore aqoonin ee carabi maxay ku faani jirtay quraysh waxay odhan jirtay waxaanu nahay qabiila luqax luqax waxa weeyaan dadaan weligoodba loo talin dad madax bannaan baanu ahaynoo dhulka iskaga nool marka waxaan ku soo koobayaa saxaaba waxay xadaarad iyo taariikh iyo ummad ku sameeyeen oo ka gadisan umamku bay dhahaan boqolaal sano ay dhismaan laakiin tii saxaabadu bay dhahdaan aqsar waqti dunida wax la dhisay dhiseen waqtigii ugu koobnaa waayo dadkii ugu qumanaaya diintan qaatay ahay kuwii ka dambeeyey hadba jiilkii inuun roonaadee qaatay waxbay iska dhiciyeen weligoodna lama gumaysanin jiilkii ka tegayna ama mogool ha jiidho ama crusades ha jiidhaan ama kuwan maanta cid haysataba aan la garanayn ee dunida kuwada dullaysan ha ahaadaan waxoo dhan markaad isku darto waa dacfi gudaheenna ka jira cadow baa xoog batay taariikhda marnaba war may ahayn mar walba dunida ninka is haysaan dee wuu fakerayo wuu tashanayay laakiin dadka maanta intay ooyaan cadaaladda ka raadinaya United Nation ee ka raadinaya cadaaladda Yurub ee ka raadinaya ninka is hayeen inuu cadaalad sameeyo ma inuu naxariisto sidaa marnaba guul laguma helo inteenan caawa halkan fadhidana ilaahum baan gaalka inagu itixaamin daynaba caawa maynan hooyanin ila tabarka la baayne mashaakilku wuxuu yahay war hooy diinta ha loo noqdo akhriya dunba wala guulaysanaya wassalaamu calaykum waraxmatullaah